waxaa dabiici ahayd waayii hore in dadku ay raacaan taksiga ayagoo ku sugaya jidadka. dhibka ugu weyn ee ku qabeen dadkuna waxay ahayd inuu taksigu uu qofku ka soo daaho. laba nin oo saaxiibo ah ayay sugayay taksi, kadibna wuu ka soo daahay. daahitaankaas ayaana keentay fikradda dhalashada shirkadda Uber, oo ah shirkadda ugu caansan adduunka maanta dhinaca gaadiidka dadka qaado. waana shirkad kuu fududaynaysa sidii aad ku tagi lahayd meeshii aad doonto, weliba si fudud. kusoo dhawaada daawadayaal qisada guusha shirkadda Uber. Uber waa shirkad wadamo badan ka shaqeysa, waxaana la aasaasay 2008 ama fikradeedu ay imaaday 2008. fikradana waxaa keenay laba nin oo saaxiibo ah oo lagu kala magacaabo Travis Kalanick iyo Khalid Gam, waxaana lagu tilmaamaa shirkadda ugu koritaanka badan 10 sano u dambeysay caalamka oo dhan. magaalooyin badan ayay ka shaqeysaa shirkadda Uber. waxaan filayaa inta badan dadku inay yaqaanaan Uber markaad meel u socoto magaalada aad ku nooshahay, adigoo gurigaaga joogo inaad moobilkaaga ka dalbato gaari, kadibna guriga kuu soo hor istaago intii aad wadada gacanta u haatin lahayd taksi. adigoo gurigaaga joogo ayaa dalban Uber. 2020 applicationka Uber ee taksiga laga dalbado waxaa isticmaalayay 78 milyan oo qof, waxaana hubaal ah in tiradu maalinba maalinka ka dambeysa ay intan ka badanayso. waxayna ku shaqeysaa qaab cajiib ah oo ah inaysan lahayn gawaarida u shaqeysa ee ay qofka gaarigiisa shakhsiga ah ku shaqaysiinayaan. in gaarigaada ay u adeegsadaan taksi kadib heshiis dhex marayo qofka gaariga leh iyo shirkadda Uber. qisada siday u bilaabatay Uber. asaasayaasha Uber, Travis Kalanick iyo Khalid Gam, intaysan unkin Uber waxay soo mareen tijaabooyin badan, sida in ay shirkado yaryar oo ay lahaayeen dhinaca tiknoolajiyadana ka shaqeysa ay lacago badan ku iibiyeen. waxay ahaayeen rag hanti haysta, laakiin may ogeyn in balaayiin lacaga sugayso kana imaan doonta fikrad ka dhalatay taksi ka soo daahay. 2008 waxay ku sugnaayeen labada nin Paris, Faransiiska, ayagoo ka qayb galayay shir tiknoolajiyadda looga hadlayay. waxayna rabeen in ay raacaan taksi, laakiin tagsigii ayaa ka soo daahay. 2008 sida maanta xaalku yahay dabcan ma ahayn in moobilka laga dalban karo gawaarida. wax badan ayay sugayeen taksiga, waxaana ku soo dhacday fikrad ah maanbal samayno wax isku xiro shirkadaha tagaasida iyo dadka, kadibna qofku ka dalban karo moobilkiisa asoo gurigiisa joogo. fikradaasi waxay isku bedeshay in ay isku xiraan dad caadi ah oo gawaaridooda wata, in darawalku uu moobilkiisa ku degsado applicationka, heshiisna la galo Uber, taasoo ah in qofka caadiga ah markuu moobilkiisa furo uu maapka ka arki karo gawaarida ku xiran Uber ee ka agdhow, kadibna uu dalban karo. waxaana lagu bilaabay shirkadda Uber 3 gaari kaliya. maantana waxaa u shaqeysa Uber ku dhawaad 1 milyan oo gawaari ah. markii ay Paris kala soo laabteen fikradda Uber oo ay Mareykanka ku soo laabteen, ay aad ugu dadaaleen sidii loo hirgelin lahaa fikraddaas. waxayna markaasi gateen magaca haatan loo yaqaano ee Uber, waxayna si rasmi ah u bilaabatay shirkadda Uber 2010. sahlanaanta isticmaalka applicationka Uber ayaa ka dhigaya mid degdeg u faafo in kaliya aad ku dalban karto gaari. markii ay arkeen shirkadaha wax maalgashado in shirkadani ay tahay shirkad guuleysanayso, waxaa bilowday maalgashi, waxayna gaartay lacagta lagu maalgashaday 41 bilyan oo dollar. laakiin shirkadda Uber waxaa soo wajahayay weerar adag oo ugu imaanayo shirkadaha tagaasida caadiga ah, maadaama ay suuq la'aan dhigtay shirkado badan. dadku intii ay sugi lahaayeen taksi waxay ka doorteen ayagoo gurigooda jooga inay halkali ku dalbadaan gaari uguna imaanayo gurigooda. dadku waxay ka leexdeen tagaasida waxayna isticmaaleen Uber, waxaana batay buuqa iyo dacwada ka dhanka ah, keenayna in wadamo badan oo ay Uber gashay laga soo ceyriyo. 2013 Uber waxay gaartay wadamo badan oo caalamka ah sida Hindiya iyo Shiinaha oo ah wadamada ugu dadka badan adduunka, taasoo sababtay inay malaayiin qof adeegsadaan. 2018 Travis oo ah mid ka mid ah labada nin ee lahaa fikradda Uber wuxuu galay liiska Forbes ee ragga ugu qanisan caalamka kadib dadaalkaas dheer.
waxaa kaloo laga tagi karin in 2019 ay Uber la soo wareegtay Careem oo ah shirkad u shaqeysa sida Uber u shaqeysa oo kale si suuqoodu qalqal u galin. Careem bay bakateen lacag gaaraysa 3.1 bilyan oo dollar. Uber maanta caalamka ayay ku faaftay waxayna gashay inta badan magaalooyinka caalamka. daawade fikradu waa muhiim waana wax la isku dhaafay helida fikrad waxaana ogaataa xalinta dhibaatooyinka ku soo wajahday fikradii aad ku xalin lahayd inay dhasho lacag aadan malaysan karin. marka daawade fikradu waa muhiim. fiidiyowgan maanta halkan ayuu noogu egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.